نبي الله إدريس وحو ألا سيي حكمة يا الله كعبس بدن سيدو كل وحو آدو يقاني علمك حسابتها يحدقها وحنا لا شيغا إنو هاقو فيغو هوريي ee bilaabay in wax lagu qoro sidoo kale waxa uu bilaabay ama ikhtiraacay falninka waxa sidoo kale waxa uu ikhtiraacay tolashada dharka sidoo kale waxa uu soo gaaray nabi aadan oo nool oo geeridiisa ka harsan tahay 308 sano waxa uu kamid yahay nabiyada Allah uu doortay saydadka ugu yeedhan cibaadada ugana digan naarta sida laga soo xigtay buugga ibn kathir waxa uu buugiisa ku sheegay abtirsiga nabiyullah idris sidoo kale abtirsimadiisu waxay galaysaa seef oo ahaa wiilka nabiyullah aadam abtirsimadiisuna waxa weeye idris ibn yarad ibn mahlalil ibn khayran ibn anusha ibn shayt ibn adam alayhi salam nabiyullah aadam intaanu dhiman waxa xilka uga daardaarmay iyagu yeedhista alle waxaana xilkaas uga tagay wiilkiisii seef oo ahaa kuwa ugu waaweyn caruurtiisa waxaan waa mid kamid ah nabadoo dhalay nabiyullah aadam waxaana ku xigay haabil iyo qaabil markii uu dilay walaalkiis waxa uu iskaga jirooday deegaankiisii sidaas ayuuna uga dhaxbaxay dhimashadii aadam waxa xilka qabtay wiilkiisii seef uga dardarmay markii hore waxay culimada islaamku sheegeen inuu seef ahaa nabi ku xigay aadam kadib markii uu seef la wareegay xilka waxa cibaadada si baray caruurtiisa iyo walaaladii kadib isna uu dhintay waxa xilka uga dardarmay oo xilkii la wareegay wiilkiisii anusha waxaasna xilkii uga dardarmay oo xilkii kala wareegay wiilkiisii khayran khayrana xilkii uga tagay oo isna uga dardarmay wiilkiisii mahlaa'il oo ahaa awooga nabi idris sida la soo wariyay waxa mahlaa'il ahaa boqor aad u weyn oo haybad Allah siiyay waxaan uu ahaa nin aad u xikmad badan codkarna ahaa waxaan uu ahaa qof aad u safri jiray oo dhulka oo dhan ayuu ku soo wareegay sidoo kalena dhulka aad ayuu bartay taariikhyahanada ayaa ku dooday inuu ahaa ninkii bilaabay magaaleynta oo ah dadkan qaar noqdaan reer baadiye qaarna noqdaan reer magaal waxaana la sheegaa inuu ahaa qofkii bilaabay magaalada qadiimiga ah ee baabil ee ku taala dhulka ciraaq sidoo kale waxaa la sheegaa inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee ikhtiraacay taashka madaxa ay saartaan boqortooyadu iyo ilbaxnimo kale oo aad u badan isla markaas ku cusbeed aadamaha sidoo kale waxa uu ibn takthir sheegay inuu mahlaa'il la dagaalami jiray jinka ilaa uu ka saaro dhulka korkiisa oo ay fuulaan buuraha iyo inay qaxaan jasiiradaha markii uu dhintay mahlaa'il waxa xilkii la wareegay wiilkiisa yarad oo ahaa aabaha idris kadib geeridii yarad xilkii silsilada soo ahaa ee soo socday ilaa nabi aadam waxaa dawr la wareegay oo gacanta ku qabtay nabiyullah idris alayhi salaam waxa uu nabiyullah idris mulkiyay xilkii iyo maamulkii ahaa inuu dacwada faafiyo shaydaankana la dagaalamo waxaanu dhaxlay xikmad iyo aqoon badan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu nabi idris u doortay inuu noqdo nabigii ugu horeeyay ee doorto kadib nabi aadan laakiin sida ay sheegaan ibn kathir iyo culimo badan oo kale waxay sheegaan inuu seef ahaa nabigii ku xigay aadam Allah subhanahu wa ta'ala ayaa idris ku sifeeyay inuu ahaa nabi rusheega ahaa sida laga soo xigtay culimada waxay sheegaan inuu nabi idris ahaa qofkii ugu horeeyay ee ku qora qalin wax ibn kathir waxa uu sheegay markii uu dhimanay aadam waxa uu isugu yeedhay caruurtiisa oo dhan waxaana sheegaan markii awlaadiisa oo dhan isugu timi in tirahan noqdeen 400 oo kun oo qof waxaanu caruurtiisina u sheegay inaan alla ka fogaanin oo shaydaankana aan maqlin wuxuu nabi idris dhashay ka hor geeridii nabi aadan 380 sano markii nabi aadan caruurtiisa u yeedhayna waa ku jiray nabi idris waxa culimada sheegtaa inuu nabi idris dadka bari jiray culumta kale sidoo kale waxa uu aqaanay xisaabta iyo xidigaha taasuna waxa ahayd karaama Allah uu siiyay nabiyullah idris waxaana la sheegaa dhimashadiisii inuu yimi malag si uu geeyo samada afraad markii samada afraad tageenna waxa ka soo horbaxay malakul mawt kadib malakul mawtkii ayaa wadiyay xaq uu ku wado idris kadib wuxuu maligi ku jawaabay waxaan u wada xaq alle waxaan u rabaa inuu cimrigu kordhin karo halkaas waxa ka cad inay cimrigiisa dhamaatay nabiyullah idris kadib malakul mawtkii ayaa ku dhahay malagii Allah ayaa soo diray inaan samada afraad ka qaado nafta nabiyullah idris maadaama ay ka dhamaatay muddadiisii kadib markii nabiyullah idris dhintay waxa siyaaday oo badatay macaasidii iyo fasahaadkii ilaa markii dambe ay dadku sameystaan dhagaxaano ay caabudaan sidaasna waxay ku kufriyeen allahood aakhirkina dadku waxa laga waayay hal qof oo ilaahay caabuda markii la dhalmiyay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi waxa samada afraad ku sii maray nabiyullah idris alayhi salaam halkaas ay ku soo dhamaatay qisadii nabiyullah idris naxariistii nabadgeliyo karkiisa haatee halkaas ay maanta barnaamijkeena inta ku kulmayno barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan naga tagnaa sidaas oo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh
السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل، قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل، تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل، وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل، وانساب مثل السلسبيل.